أولي مهي ميشان وكلا إن وهابي قدك أهاي أنا أولي جاي مولع وحاوه استي مولع أهل السنة أو أنا كو أنك أهاي وهابي قنا أولا نقاب كويه هذا مركب وحانو قادي سيدا دبا وهابي ولا حوصو نوباهي ما تربطنا انت صدقوا قبحو runtii horta aad iyo aad ay u sharafiyeen guddigii howlaha soo qaban qaabiyay si kastaba ha ahaadaane wax walba hoosees ka jiraan laakiin shirkan oo kale in la qabto waxay ahaday arrin muhiim ah oo beeshaana muhiim u ah ummadda Soomaaliyeedna muhiim u ah waana soo dhaweeyay aad iyo aad ayna u mahadsan yihiin aniga shirkan mar horaan aqbala mawlacaanan ku aqbala markii hore waa ka biyadiida laakiin processka uu soo mariyo awgiis inuu shir mudulood yahan u aqoonsado haddana wili waa u aqoonsanaa maxaa yeelay haddaan meesha tegay aan baqarda jeex ku tegay waa lay sabciyo dadkii xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda ay ahaayeen dadka sabcaay sababta aan qof iyo cod u rabana saas waay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin madaxweynayaashii hore hadduu yahay xasan sheekh iyo hadduu yahay sheekh shariif sheekh axmed iyo dhammaan xildhibaanada iyo wasiirada madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle gudoomiyaha gobolka imaamka iyo ugaaska iyo dhaqanka oo dhan dhalinyarada haweenka bahda saxaafadda iyo uqaasha Soomaaliyeed ee halka isugu timido beesha mudulood ay u badan tahay dhammaantiin waxaan idinku salaamaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bacda salaam runtii beeshaanu waa gogasha Soomaaliyeed waana beel nabad ku caan baxda mana ahan beel colaad shaqa ku leh waa beel isu soo dumidda ummadda Soomaaliyeed ma taqaanaa ku caan baxday haddana anagu tiiyaan u naqaanaa waana ku difaacaynaa inay naqato waxay hidda iyo dhaqan u lahayd ha ahaatee annaga waxaan u baahannahay argagixisada inaan xoreynaa loo baahan yahay shirkan inay argagixisada laga xoreeyo annaga waxaan u naqaanaa argagixisada dhulkeenna haysata inay odayaashoodii inta joogaan ilmihiinay xagga jiraan annaga argagixisadaas dhul naga haysa ma karto annagu haddaanan ku ilaalihay walaalayaalo nooc kastood isugu jirtiin inaan ka xuraysanno oo aan gacmaha isqabsanno oo sharaf darrada iyo karaamada aan ab iyo isin u lahayn oo argagixisadu nagu samaysay aan deegaanadeenna ka xuraysanno ilaaha idinku dhaarshay raalli ma ka tihiin lacagta lagu xurayhayo midda ugu badan aniga ha laygu qoro ninka xurayhaayana waxaa uu hormooda saraakiisha waa fadhidaahe waa kaas gacma dullee ku filan iyo cabdulle ilaahan idinku dhaarshay maalin walba in annaga naloo tugiyo argagixiso oo aan tegi weyna degaanadeennii ee maalin walba wax beena aan ka shaqayno ee aan fursad dhuminno ee aan dan shaqsi ka shaqayno ma taasaa annaga aan qaada karna taas go'aanku ha naqdo waxaa soo hera doorashada wakhtigeedii ay ku dhaceen madaxweyne farmaajana carabkiisa uu ku dhiftay laakiin inay u dhiman tahay
tahay bilamaad moogta xasan sheekh inuu 6 bilood ku darsada maad moogtii sheekh shariif kambala akood hal sano inuu ku darsada maad moogtii soomaalinimadu cadaaladay rabtaa ninkan hadday u dhammaato hadduu farsamo la imaan waayo asigaa laga rabaa madaxweyne farmaajo anaa la taliya u ah doorashada inay wakhtigeeda ku qabsantaan ka shaqeyna laakiin dadkaan sugi karin oo fidna uun daawo u tahay aan anagu diidanna ilaahay idinku dhaarshan fursadiisa ha la siiyo hadda dhibaatada la geeyo inta laga waca meesha la yidhaahdo duusamareeb ra'iisul wasaare saaxiibka ahaayeen inta leesku diraa la riday waatan hadda xukuumadii aan anagu la shaqeeynay waxa kamida islawga iyo daalo shalay saan ahayn maanta iyagu ma aha waa fidna laga shaqeeyay annaga waxaan rabnaa doorashada qofii codaynaqe barlamaankana meel mariya iyaga meel mariya sharcigaan uu haysta dikareetadana madaxweynaha waa ku xiranta Soomaaliya hanoolad ha israacdo ha midowdo cadowgeedu ha jabo argagixisada ilaahay ha bixiyo doorasho qof iyo coda oo ummadda Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed